galo annaka had strategic planka aan wadno waan dhaafnay idinka warsugaynaa maxaan ka geliyaa xagga doorashooyinka arinta kale aan rabo fariin inaan u diro beesha caalamka jirta arin oo aan hadda ka afeefanayo mahmaha jirto lidaado dooga king horey darbigaaw nina dooga ko hormari darbigaaw lidaado hadalkaaga haddaad hor u dhigato darbigaadu ku noqonaya casharada aan baranay oo aan baarlamaankii sagaalaad ka soo baranay waxa weeye markii siyaasiyan arrin annaka aan u jeedno in ay qaran ahaan u wanaagsaneen oo loo baahay in laga doodo waa naga hor yimaadaan waxaan rabnaa mararka qaarkood mararka hadda marxaladan la galay in la dhageysto amuuraha in laga dhageysto ayaan raadinaa maxaa ka mid ah sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa 2019 la gaaro ka bacda la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada haa iyo maya ma sugayno hadda 2017 aan bilaabaynaa waxaan idinka rabaa guddiyo inaad gadaal u soo xisaabtantaan 2020 ka soo bilaabo reedow u soo xisaabiya suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonayo inaan hirgelin karno 2020 haddii maya ay tahay walaalayaal hadda ii sheega hadda sanadkan dhaxdiisa noo sheega baarlamaankan geynaya waqtiga xilhaynta baarlamaankan dheerayna ilaa ay ka suurta gasho hal qof iyo hal cod ma yeelayno 2019 markii hooyo jawaari waxaad rabtaan inaad cumri dheeraysataan maya cumri dheerays ma arrin qaran waay ma xildhibaanada meesha inay joogaan waxaan rabnaa haddii 5 sano ay ku suurtoobaysa hadda noo sheega hadday 6 sano ku suurtoobaysa hadda noo sheega ama doorasho dadban kala u noqonayna shacbiga aanan been u sheegin haddeertan hal xisaabiyo maxaa suurtagal ah si maxaa loo baahan yahay arrimaha loo baahan in la qabto in isla meel dhigo la diyaariyo ay loo baahan yahay haddeer hal sheego imise muddo loo baahan yahay road map lagu soconayo waqti walba meeshii la qabanayo noogu soo sameeyay shintiris noo horkeena shacbiga waa loo sheegaa baarlamaan ay leeyihiin aqal sari aqal shacbi ay leeyihiin way ka doodayaan shacbiga meeshuu rabo dhigana cid aan kaga haybadaysanayna male laakiin hadda aan ka hadalno gooray marata sanad ka dhiman tahay dhowr bilood ka dhiman tahay ma doonayno in dood ay bilaabato ka bacdi far isku fiiqid iyo eed la bilaabo ma yeelayno guddiyow alla ka cabso jilibka laabo shaatigaaga furo waxaa idinka rabaa inaad istaraatiijiyadaas noo keentaan waa suurtoobaa idhaha baarlamaanka waa ogolaana ma suurtoobaa ina dhaha wixii uu ku suurtoobi karo noo sheega ama doorasho dadban kalaa u noqonaynaa ama baarlamaanka iyo waxa muddadii horxinta dheeraynayna labada mid ay noqonay laakiin galab iyo isku farfiiq iyo is-eedayn iyo international ba waxa sanction ku saaraynaa waxaan kala bixaynaa iyo hadidaad ma ka bixi karno shacbigan wuxuu ku jiraa amni xumo wuxuu ku jiraa gaajo wuxuu ku jiraa abaar wuxuu ku jiraa inta hadda xaaladeen sida aan ku hadii aan runta in sheego waxa weeyaan waxa aan la xarbinayno qof meel oo lama degaan ama desert adegan gaajaysan qaawan jiran baahan ooman ayaanu leenahay dimuqraadiyan ku barayaa kaale intaas oo dhan waxbayna rabtaa inaan dadkeena qabsanaan rabnaa inaan dhalinyaradeenna oo hirgelinaan rabnaa inaan shaqo abuurnaan rabnaa inaan gaajada ka tirno inaan tuugsigaan oo masawirada lagu tuugsanayo oo la wareejinayo ma doonayno shacbiga ma doonayo inaan ka baxnaan rabnaa hablaheena oo karbsaar isku qarinaya wejigaaga yaa la arkin oo marata ay saliidda ku qaadanayso ma doonayno walaalayaalow arrintaa noo sameeya markaan aan u duubano arrimaheena kale ayaanu sugaaya waxyaalo badanaanu sugaaya inaan qabsano intaasaan idin xilsaarannay annakii ummaddan kale oo la yidhaahdo beeshanaad beeshaan maxaa lahaa beesha lixaad inaan isqa qabsana beesha caalamka inaan isqabqabsana ma rabnee walaaliyaalowna kala fura maskax shiil sameeya ahlan wa sahlan ninkaad yidhaahda axmed aniga isagoo soo wada shaqaynay UN-kaan wada shaqaynay saaxiibkayga waay anaa ku riixay xaliimo wadaadkaas raadi ilaa baarlamaankii sagaalaad baa wadaadkaas raadi aan lahaa farmaajo ma keensanay annagaa keensanay waa insha allah wuxuu ka keensaday waa kuwa oo magaciisa kuwan idabta daran wax qorqorayo waa iska marin habaabin wada weeyaan marka taa aan ku soo gonaanado بيت القصيدة waxa weeyaan
walaalayaalow guddigow madax bannaan khubaro waxaad doonaysa annakoo dhan baa diyaara inaan kula shaqayno barlamaan ahaan diyaar baan ku nahay labadeen aqalna idinla shaqeeyaan arrintaa muhiimadda gaarka u leh qaranka naga xigsada maskax shiil sameeya cid aad ka cabsataan aysan jirin alla ka sokow annakaa idinla jirayna runta noo keena yaan isku qabsanay